taliyaha qaybta 6aad ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed Generaal Maxamed Sheekh Cabdullaahi Xiirow iyo tababaran hiri cutubyo ku tirsan ciidanka xooga dalka oo muddo lama bilood tababaranka socday dugsiga tababarka ciidanka dawladda Ingiriiska iyo kale magaalada Baydhabo ee xarun goboleedka Bay mayna tababarka muddada soo socday biyay saraakiil ku tirsan dawladda Ingiriiska wana la kawada ciidamada geeka tababarka la hirintii iyo qayb kunagadan howlgallada la ka xaqiijiyo amniga dalka gaar ahaan gobolada Koonfur Galbeed oo hata wadooyin iyo go'doomiyeen maleeshiyaadka Al-Shabaab xiritaanka tababarka yamay ku qayb galay wasaaradda amniga warfaafinta tamarti iyo biyo saraakiil ciidamada booliiska militariga iyo marti sharaf kala cutubyada geeka tababarka la hangiriya bandhigii habka lan fuliyo howlgallada iyo sidoo isku difaaca weerarada gaadmada ee iyo hagaadayaan cadawga oo tababar iyo qayb ku hayay munaasabada xiritaanka tababarka aan kooreen may ku hadlay saraakiil ku socodka dawladda UK mayu hambaliyaan direena ciidamada geekland hiraay tababarka iyagoo sheegay intii mar walba iyo diyaarinayeen sidii dawladda Soomaaliyeed iyo ku caawiye lahaayeen tababarka ciidanka iyo waliba tayeentiyo So stay loyal to your section, your platoon and the company you are in. daacadnimo amroog ururtaada ku tirsanta mas'uuliyadda ku tirsanta mas'uuliyadda ku tirsanta. You will fight better in those teams that you have built here, and good luck for the future. Maysi rajay mustaqbal wanaagsan team ahaantiina oo antan ku bateen. And now some thank yous. Waa mahadsantii. First, I thank the UK instructors for their hard work, professionalism, good humour and friendship with the company. marka hore mahadnagay macallimiintii ku socdeen dhinaca dawladda UK oo muujiyeen dadaal iyo waliba saaxiibnimo ka dheeraanta waan isbarshi iyo dhaqan wanaagsan saddex marin taliyaha qaybta 6aad ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed Generaal Maxamed Sheekh Cabdullaahi Xiirow yan ka horeyntii aan mahadnagay safaaradda dawladda Ingiriiska iyo kale dalka sida marwal biyon garab surunyeen dawladda Soomaaliyeed sidii ku caawiye lahaayeen dhinaca ciidamada maynus kala dardaaramay ciidamada geeka tababarka la hangiraha intii ku faa'iideysadaan wan iyo deersiyan saaxiibadii kale ee ku tirsan ciidanka xooga dalka ee nasiibkiin helantii iyo galan tababarku wan uu kala dardaaramay ciidamada intii oo diyaar garoowan sidii guutaan dalka lan ku safeey lahay maleeshiyaadka Al-Shabaab inga geeka in aan arday ku gala xiritaanka horintii lamaad oo qaybta 6aad oo ku najaxday tababarkii muddada lamaad bilood hawadeen iyadaan ka faraxsan may arday kama hadnaqay saraakiishii iyo madaxda UK suurta geliyay in arday ciidamadan quruxda badan horteen surun geeka najaxeen tababarkii casriga iyo siiyeen markii aan haynayada ciidamada hortay surun way nasiib haleena aniyo qaadan tababar casri ah oo waqti gaaban ah oo lama bilood ama 8 bilood siyad week ah ani arday ka aflaxeen geekana awood in leeyin ani arday cadow kiisho meel kasta insadan waan burburiyaan sidii waqtiyo inta galaan ilaa haddana isku mid aan hayna kalsooniyadoona iyad insareed way kale nasiib haleena niisin halaan dhammaan qalabkii askari linka talagalay nooc kastaba ani ardaya la sameystiri galantan la isku saari haddana sidii arday un aaminsan ama maalmaha dhow horinta lamaad ma horinta taagma hirintoona qalabayn gaadiid iyo koran ka doonta yaa arday si sheegay cutubyada ku tirsan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed qaybta 6aad ee geeka tababarka la hiri dugsiga tababarka ciidanka dawladda Ingiriiska iyo kale magaalada Baydhabo ee xarun goboleedka Bay
yalka wadantiyo qayb ku nagdan howlgallada laga xaqiijiyay ammaanka guud ee gobolada Koonfur Galbeed oo horeen iclaami madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaran Faysal Maxamed Isaan warbaahinta dowladda Koonfur Galbeed Baydhabo